sidee buu qofku ku noqon karaaba isweydiin le qof dhaqan fiican maadaama ay qiimaha intan leeg diinta iyo dhaqamada bini aadamkaba akhlaaqdu ku leedahay waa maxay waddada loo mari karaa ugu horreyn waxaan leenahay akhlaaqdu qaybi waa fitri waa abuur qaybi waa abuur qaybina waa muktasab waa wax la barto oo tadriib iyo training waa wax tababar loo galo si aad naftaada u dhisho oo qurunka uga dhisho oo aad ka dhigtid qof suuban oo hagaagsan inaad xilmi yeelato waa wax la baran karo inaad dadka ixtiraamto waa wax la baran karo weliba schooling systemku iyo malcaamadaha iyo madaaristu marka aan afkaartani bislaanin innaga waxaynu dadka barraa markaa waxa weeyaan cabsi macallinku markuu soo galo yararku inay sidii jiir la qabtay iswada taagaanuun isnabaan markuu baxana inay buuqaan waayo wuu baqayee muu baranin in la deganaado maad u tababarin qofkani inuu deganaanshiye heli karo maad u tababarin qofkani si xasiloon inuu socdo ee waxaad u tababartay ushaa markuu arko iyo markuu adiga ku arkaba inuu istaago markaad adigu baxdana inuu wixii doono sameeyo idan cabsidu maaha wax bini aadamka lagu tababaro bini aadamka waa la train gareeyaa si kale wax loo baraa si awgeed waxaynu leenahay akhlaaqdu wax la barto iyo wax abuuraba way leedahay ta abuurkaana waa la sii xoojin karaa meelaha aad hanjafka ka gaaban tahayna waa lagu kamili karaa ama waa lagu dheerayn karaa waxaanad ogsoonaataa waxay dhahdaan culammadu iyagoo aayad qur-aana daliishanaya aadanuhu laba ceebood buu leeyahay bay yidhaahdaan ama laba cawro laba ceebood oo u baahan in la qariyo buu wada leeyahay labada saw-aba ilaahay sutra buu u sameeyey wax lagu qariyo cawra waa cawradan jidhkii aynu naqaano waxaynu ku qarinaa dharka isla markaana waynu isku qurxinnaa dharka waxaynu u xidhannahay sababo badan laakiin sababta koowaad waxa weeyaan inaad cawradaada asturto sababta labaad aynu u xidhannaana waa maxay waa inaynu isku qurxinno oo dee cawrada maro kastoo aan isku duuduubna waa qarin lahayd laakiin waxaad mid gaara u tolatay ee usoo kaakaawadaysay ee saan ugu gashay inay liziina kuu noqoto haddaba hadday jidhka sare maradu asturto cawrada hoosena akhlaaqda asturta qofku hadduu akhlaaq leeyahayna waa asturan yihi hadday akhlaaqdu kugu yartayna cawradaadaa muuqata dadka badh baa markuu waddada kaaga soo baxo aad sodhanaysaa ka weeco nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar buu wuxuu yidhi si fiican u salaamagaasay ku tiri caaisha sawkii ninkan aad warkaa ka sheegtay bi'sa akhul cashiira buu ku yidhi markaasuu yidhi waa kuwa sharkooda lagaga nabad galo yacni dadka badh baad isku dayeysaa the minimum wakhtiga ugu yar inaad la qaadato waayo waxaad is leedahay keliya nabadgeli maysid haddaad wakhti badan la sii joogto sidaa awgeed qof kastoo inaga midi subaxii markaad toosto waad wejigaad dhaqataa afkaad cadayataa waad isnadiifisaa haddaad nin qolada sare ah tahay waad isa sii buufbuufisaa waxaasoo dhan waxaad u samaynaysaa aadamahaad u tegaysaa inaanu ama ur aan qurux badnayn kaa helin ama muuqaal fool xunle aan kugu arag waxa ka qurux badan jamaalul afcaalka in dhaqankaagu qurux leeyahay ayaa ka qurux badan marada sare la xidho taasaa u baahan inaad dadaasho oo aad isku daydo qof waliba wuu isogaya ceebihiisa qof aan is aqooni ma jiro mostly waad isgaranaysaa meelahaad hanjafka ka gaaban tahay haddaba waxaad u baahan tahay inta aanad cadayga iyo marada iyo cadarka iyo shaambooyada ka fekerin inaad ka fekerto qalbiga iyo saaad u daahirin lahayd saaad naftaada uga dhigi lahayd naf rabbaysan ilaahay wuxuu leeyay yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr waa reer nebi aadama waxaan idiin soo dejiyey baa ilaahay leeyahy libaasan yuwaari sawaatikum
maro ama hu aa ku qarin kartaan cawradiinna iyo wariishan baa ilaahay yidhi iyo ku la ysku qurxiyo laakiin waxaa la sheego kale walibaasu taqwaa dalika khayr baa la yidhi huga taqwada huga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo alla ka cabsiga ayaa ka khayr badan waxa kale oo dhan waxaan leenahay markaa waa laba hu oo la wada qaate yuu noqoninkaad muhiimadda siinaysaa kan sare hooyada aabbaha ilmaha maryo fiican ma loo talo ciiddii maro ma la siiyey innaga dhammaanteen waxaad mooddaa ka muuqaalku inuu inagu badan yihi dunidan materialistkii aynu nimina dee dadkaba jeebkiisa lacagta ku jirta ku qiimeeya iyo kursiga uu fadhiyo oo humankaba waxaa loo kala fadilaa siday jeebabka lacagtay ku sitaan u kala badan yihiin laakiin lacagtu waa maadaadkan dhulka yaalla ka mid ah insaanka sayidka ah meesha tan insaannimaduna waxay ku dhammaystirantaa bacda alcaqiida waalcibaada dhaqankaa dhammaystira haayada bay yidhaahdaan markaynu ka nimaadno bacda rida allaah haayada laga leeyahay akhlaaqduna waa buluuqi alkamaali albashari wasacaada taama bay yidhaahdaan waa in qofka la gaadhsiiyo aadamnimada dhammaystiran aadamnimada dhammayska tiran leh waa in qofka la gaadhsiiyo walidalik ba waxaynu tilmaamaynaa nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam min dalaa'ili nubuwatihi waxaa ka mid a xusn اlakhlaaq waxyaabay culammadu u deliishadaan nebinimadiisa bal qabla almucjiza dad baa ku rumeeyey dhaqankiisa daraaddeed oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kamaal bashariya buu lahaa qof dhaqankiisu uu dhammaystiran yahay buu ahaa qof ilaahay taskiya siiyey ilaahay nadiifiyey oo xumo badan ka nadiifiyey buu ahaa saa awgeed waxaynu leenahay gruubkii koowaad ee muslimiinta ee islaamnimo nebinimadiisa waxay u deliishadeen dhaqankiisa khadiija radia allahu canha markuu qaarulxiraa ka yimi ee waxyigii u horreeyey ku soo degay isagoo kurbaysan uu yimi waxay u deliishatay nebinimadiisa iyo dhaqan wanaaggiisa kallaa wallaahi maa yukhziika allahu abadaa bay tidhi ilaahay baan ku dhaartay inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin sababtu waa maxay innaka latasilu raxm waxaad ahayd bay leedahay mid qaraabo xidhiidhiya oo qofka culayska ka qaada oo kaan waxaysane macduumkaa wax siiya oo martida soora oo dhiboo yacni waxay sifaynaysaa dhaqankii akhlaaqeeda u lahaa akhlaaqdani bay leedahay waxay tilmaamaysaa qof alla doortay inaad tahay qof xumo ku soo socdaan ma u muuqatid bay ku tilmaamaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wasfiga ugu weyne uu nebiga qur-aanka ugu qoray waa wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad tahay mid ku sugan wainak waa jumla ismiya adawaatu tawkiid lagu bilaabay xarafka la isticmaalay waa calaa alculuw waxay yidhahdaan waxaan oo dhamme waxay tilmaamayaan baa yidhahdeen fii cilmi luga marka la eego nebi maxamed akhlaaq dhammaystiran diin dhammaystiran inuu ku sugan yahay ilahay wuxuu leeyay wainaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq dhammaystiran mid ku sugan baa tahay idan waxaynu leenahay akhlaaqdu waa min dalaa'ili nubuwaba waxyaabaha loo deliishado nebigu inuu nebi yahay bay ka mid tahay waxaa kugu filan xadiidkii bukhaari ee heraklis boqortooyadii ruum ninkii haystay abu sufyaan oo gaal ah oo aan muslim ahayn ayaa la waraystay markii waraaqdii nebigu uu diray ay u tagtay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi cidima ka joogtaa qoomkaa oo waxaa la soo helay 6 nin dabeetana abu sufyaan baa la waraystay warkii abu sufyaan la waraystee la weydiiyey hiragal 13 ama 14 su-aalood buu weydiiyey intiiba wuu uga jawaabay waxaanay wada tilmaamayeen dhaqankiisa wuxuu heraklis leeyahy markaa fain kaana maa taquulu xaqaa waxaa ii sheegteen hadday run tahay fasayamliku mowdaca qadamaya haatayn wuxuu hanan doonaa halkan aan jooga buu leeyahy waan ogaa in nebigu soo baxayo laakiin maan moodayn buu leeyahy inuu idinka mid yahay ee haddaan gaadhi karaya buu leeyahy waan isu xambaari lahaa waan isku dhibi lahaa inaan gaadho cagihiisaanan maydhi lahaa buu ku tilmaamaya
waxa uu sheegay abu sufyaan waxay u badan yihiin dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u dhaqmayay biografigiisa markii looga warramay buu wuxuu ka daliishaday inuu nebi yahay heracles wuxuu ka daliishaday biografiga nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebi yahay abidar saxaabigii la odhan jiray markuu soo diray walaalkii uu yidhi war bal nin baa maka ka soo baxay oradii soo waraysa ninkaa xaalkiisa xadiiska kale bukhaari ku yaalla wuxuu leeyahay walaalkii unays waan soo socday oo waa nimi dabeetana ninkii baan dhegaystay abudar buu ku soo noqday abudar wuxuu ku yidhi war maxaad ku soo aragtay ninkii ra'aytuhu ya'muru bimakaarim alakhlaaq buu yidhi waxaan soo arkay nin dadka faraya dhaqamada kuwa ugu fiican ama u qurux badan leh nin faraya baan soo arkay saa awgeed ayuha alxiba waxaynu leenahay haddii nebiguba risaaladiisii calayhi salaatu wasalaam uu cinwaan uga dhigay inamaa bucidtu liutamima makaarim alakhlaaq aw saalix alakhlaaq labada riwaayadood ba imaamu axmed baa warinaye hadduu uga dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinwaanu risaalaba inay tahay akhlaaqda inuu dhammaystiro waxa loo soo diray waxay culammadu yidhaahdaan akhlaaqduba waa saddex qodob bay sheegaan iyagoo aayad qur-aana daliishanaya waxay dhahaan waa badli اlmacruuf wa kafi اlأdaa wa اxtimaali اlأdaa bay yidhahdaan akhlaaqiintaasay ku dhantay bay yidhahdaan waa qofkoo samaha sameeya badli اlmacruuf wixii curfiga ku fiican ee macruufkee dadku wada qirayo qofkoo sameeya iyo qofkoo dhibtiisa dadka ka haysta aan isaga wax dhibi ka soo fulin iyo qofkoo dhibta dadka kale kaga timaada u dulqaato oo aan cadhoon ama markiiba boodin waxay yidhahdaan akhlaaqiintaasay ku koobantay intaana waxaa laga qaataa bay yidhaahdaan aayadda qur-aan ee ilaahay leeyay khudi alcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin